بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كاستود جوجتان كسر هذا warbixin gaar ah aan ku eegayno aqoonsiga uu Ruushku aqoonsaday dawladda ay hogaamiyaan Taalibaan ee dalka Afghanistan markii Ruushku noqday dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsaday ay dawladda ay Taalibaan ka dhisay dalka Afghanistan tani markii la wareegeen xukunka sanadkii 2021 waxa ay isku shareeray su'aalo ku saabsan sababaha ka dambeeyay talaabadan saameynta ay yeelan karto iyo sida uga falcelin doonaan reer galbeedka iyo dalalka Carabta tani ma bilaabaysaa tartan diblomaasiyadeed oo cusub ma u gol xaaraysaa in Taalibaan ay noqoto xukuumad si caalami ah loo aqoonsado maxay carabtu wali aqoonsan laadahay dawladda ay hogaamiyaan Taalibaan ee dalka Afghanistan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in Moscow ay si rasmi ah u aqoonsatay dawladda Taalibaan taasoo ay ku sheegeen dawlad imaara islaami ah go'aankan ayaa lagu sheegay inuu furo u noqon doono iskaashi miro dhal ah oo labada dhinac kana shaqeyn doonaan danaha labada dal gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Taalibaan ayaa si weyn u soo dhaweysay aqoonsiga Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Taalibaan Amir Khan Makhtuqi ayaa kulan ula qaatay safiirka Ruushka ee u fadhiya Kabul Material Sakharov waxa uu halkaa ku shaaciyay in Karmenilku si rasmi ah u aqoonsaday xukuumadda Taalibaan Makhtuqi waxa uu talaabadan ku sifeeyay mid geesinimo leh oo mudnaan lagu dayda leh go'aanka Ruushku waxa uu si qoto dheer ula xiriiraa isbeddelka istiraatiijiga ee ka socda gobolka gaar ahaan xilligan oo dunida u kala qaybsamayso laba dhinac reer galbeedka oo Mareykanku hogaamiyo iyo dhanka kale oo ay hogaaminayaan awoodaha sida Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan Ruushku wuxuu doonayaa inuu kaalin muuqata ka qaato gobolka bartamaha Aasiya isagoo ka faa'iideysanaya fargelinta Mareykanka ee halkaasi ka maqan aqoonsiga Taalibaan waxay Ruushka siinaysaa saameyn toos ah oo gudaha dalka Afghanistan ah sidoo kale Taalibaan iyo Ruushka waxay labaduba u arkaan kooxda Daesh ee fadhigeedu yahay Afghanistan mid khatar ku ah iskaashiga tooska ah ayaa fududeynaya haddii xiriir rasmi ah la dhiso waxa inta dheer Ruushku wuxuu aqoonsigan u adeegsan karaa inuu muujiyo inuu ka madax bannaan yahay cadaadiska reer galbeedka taasoo noqonaysa fariin siyaasadeed oo toos ah Afghanistan waa dal leh kheyraad dabiici ah oo aad u tiro badan gaar ahaan macdanta Ruushku wuxuu doonayaa inuu ka faa'iideysto heshiisyada dhaqaale sidoo kalena shidaalka iyo dhismaha kaabayaashana uu isagu gacanta ku dhigo go'aanka Ruushku wuxuu ruuxaysaa xadda diblomaasiyadda ee caalamka waxaa si cad u muuqanaya in Ruushku bilaabay tartan cusub oo ku saabsan cidda saameynta ku yeelan karta Afghanistan mustaqbalka tani markii Mareykanku ka baxay dalka sanadkii 2021 waxaa jiray tartan aan si buuxda u ifin oo u dhaxeeya xoogagga waaweyn waxaa la filan karaa in talabada Ruushku ay dhiirigelin doonto wadamo kale oo gobolka ka tirsan sida Iiraan, Shiinaha iyo wadamada qaar ee Aasiyada dhexe kuwaas oo raaci kara wadada Ruushka aqoonsan karana dawladda Taalibaan tusaale ahaan Shiinaha wuxuu mar horeba saxay heshiis 25 sano ah oo shidaal ah wuxuu marti qaaday madaxda Taalibaan waxaana 2024 u aqoonsaday wakiil rasmi ah Iiraan oo xiriir hore ula lahayd Taalibaan waxay sanadkan aan ku guda jirnay marti qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Makhtuqi waxaana la kulmay madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian Pakistan inkastoo xiriir hore la lahayd Taalibaan haddana xiriirkaasi wali waa mid liita tan iyo markuu Mareykanka baxay balse labada dhinac wali waxa ka dhaxeeya wadooyin ay ku xiriiraan sida daraadeed Ruushku wuxuu durbo hordhac u noqday isbeddel laga yaabo inuu horseedo aqoonsi caalami ah oo Taalibaan ay hesho ugu yaraan xagga dhinaca Aasiya go'aanka Ruushku wuxuu durbo abuuray walaac gudaha dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo midowga Yurub inkastoo aysan si cad wali u cambaareen aqoonsiga Ruushku siiyay xukuumadda Taalibaan ay hogaamisay dalka Afghanistan haddana waxaa la filan karaa in dib loo xoojiyo cunaqabatayntii saarneed Taalibaan iyadoo lala socdo cid kastoo xiriir rasmi ah la yeelanaysa waxaa la filan karaa in reer galbeedka ay xoojiyaan xiriirka ay la yeelanayaan mucaaradka Taalibaan si looga hortago aqoonsiga rasmiga ah caalamiga ay heli karaan waxaa kaloo suuragal ah in la sameeyo dib u qiimeyn ku saabsan istiraatiijiyadda la xiriirta Afghanistan oo laga yaabo in Mareykanku uu dib ugu laabto xiriir aan rasmi ahayn oo toos ah u la yeelanayo Taalibaan si aysan fursad ugu helin Ruushka iyo xulfadiisa inay isku balaariyaan gudaha dalkaas oo goob istiraatiiji ku yaala marka loo eego danaha ay doonayaan reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka inay ku cadaadiyaan Shiinaha tani markii Taalibaan ay la wareegtay xukunka Afghanistan wadamada Carabta waxay la tacaamulayeen su'aalo muhiim ah aqoonsi mise xiriir hoose waxaa jira dhowr sababood oo Carabta u diiday inay si rasmi ah u aqoonsadaan wadamo badan oo Carabeed waxay ka cabsanayaan aqoonsiga Taalibaan oo dhiirigeliyo kooxaha Islaamiyiinta ee bariga dhexe qaar badan oo kamid ah wadamada Khaliijka waxay aad ugu xiran yihiin xiriirka ay la leeyihiin amaba ay ku tiirsan yihiin reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo midowga Yurub aqoonsiga Taalibaan waxa uu khatar gelin karaa xiriirka Carabta ay la leeyihiin reer galbeedka oo Mareykanka iyo reer Yurub ay ugu horeeyaan sidoo kale dalal badan ayaa ka walaacsan sida Taalibaan oo dhaqmayso dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay sida mar walba ku andacoodaan Carabta qaar waxay sugayaan isbeddel dhab ah oo siyaasadeed ama xagga maamulka oo ka dhaca Taalibaan
si ay markaas u helaan cudurdaar rasmi ah oo ay ku aqoonsan karaan dawladda ay hogaamiyaan Taalibaan ee dalka Afghanistan. inkastoo xiriiro hoose oo diblomaasiyadeed ay jiraan sida kaalmada bini'aadanimo iyo xiriiro dadban, haddana aqoonsiga rasmiga ah weli ma dhicin. Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan ayaa markan uga hormaray Taalibaan Carabta, gaar ahaan maamulka gudaha iyo saameynta ay ku yeelanayaan gudaha dalka Afghanistan. ugu dambeyntii aqoonsiga Ruushka ee Taalibaan waa dhacdo taariikhi ah, waxay muujinaysaa isbedel weyn oo ku yimid diblomaasiyadda gobolka. haddii wadamada kale waaweyn ay raacaan Taalibaan, waxay fursad u heli kartaa inay si buuxda ugu soo noqoto saaxadda caalamka. si kastaba ahaatee, waxa ay dunidu sugaysaa waa in Taalibaan ay samayso isbedel dhab ah oo la xiriira xuquuqda aadanaha, inay la dagaalanto argagixisada si dhab ah, iyo inay muujiso inay tahay dawlad mas'uul ah sida AB ay sheegtay. intaa haddii aysan dhicin, aqoonsiga Ruushka wuxuu noqon karaa kaliya tallaabo hal dhinac oo xambaarsan dana istiraatiiji oo Ruushku si shakhsi ah u leeyahay. balse haddii uu Ruushku ku dhiirado inuu wadamo kale ku dhiirigeliyo inay aqoonsadaan dawladda Afghanistan, waxaa laga yaabaa in loo arko aqoonsi caalami ah cusub oo Taalibaan ay hesho, taasoo dib u qaabayn doona siyaasadda gobolka.